imtixaanku caqabado fara badan buu la kulmaa. Caqabadda ugu weynna waa caqabadda dhaqaalaha. Caqabadda dhaqaalaha oo runtii warbixintayada ku jirta aad haysataan, lacagta laga qaadaa waalidiinta keligii kuma filla in imtixaanka min bilow ilaa dhammaad ay daboosho. haddii tusaale yar aan idin siiyo, imtixaankii 20kii la qaaday waalidku waxay bixiyeen boqolkiiba 46. hay-adaha waxbarashada nagala shaqeeyaa waxay bixiyeen boqolkiiba 43. dowladda puntland waxay bixin lahayd boqolkiiba 16. iyadoo sidaas ah boqolkii 16kii dowladdu ay bixin lahayd 20kii bay ahayd waa xilligii koronaha la socda. duruufaha dhaqaale ee jira dowladdu way awoodi weyday inay kabto lacagtaas. macallimiintii imtixaanka saxaysay imtixaanka ka qayb qaadatay sixiddiisa weliba annagoo koobnay lacagtii waa bixin kari weyne. taasi waxay tusaysaa marka lacagta laga qaado waalidka in aanay ku fillayn haba yaraatee imtixaanka sixiddiisa. sannadkii 21kii sidoo kale lacagta waalidku ay bixiyeen boqolkiiba waxay ahayd 53 wax ku dhow. hay-adaha boqolkiiba waxay bixinayeen 30 lacag ku dhow. inta kale dowladdaa bixinaysay. lacagtii dowladdu ay bixin jirtay waxaan naga soo gaadhay iyadoo 100 iyo dheeraad kun laga rabay inay bixiso 47,500 dollar. sannadka hadda aan ku jirno imtixaanka dugsiga sare lama sixin. waxaad ogaataan hay-adihii naga caawin jiray imtixaanaadka inaan saxno waa ka baxeen. EU-da oo imtixaanka wax ka bixin jirtay dhaqaalihiisa dhammaanba waa ka baxday oo muddo fara badan bay soo watay. percentage-kii ugu dambeeyey waxaan filayaa inaan isticmaalnay 2021 percentage-kii 10%-gii ugu dambeeyey. sidaas darteed caqabadaha waxyaabaha la rabo in wax laga qabto imtixaanaadka runtii waa arrin u baahan hadda taagan. hadda maanta aan idin hor fadhiyo imtixaankii 8aadka waa la saxay, waa noo hurgashay inaan saxno. imtixaankii form 4ka waa noo yaallaa, wuxuuna u yaallaa dhaqaale la'aan loo sixi waayey. waxaan rabnaa xildhibaanada sharafta leh ee ay ugu horreeyaan guddiga arrimaha bulshada inay nagala shaqeeyaan imtixaankaas sidii loo sixi lahaa.